PP ayaa ka dhacay caasimada Djibouti halkaasoo xisbiga iminka talada haya uu si rasmi ah ay ugu dhawaaqeen in ay markii shanaad xilka talada madaxweynaha Djibouti u sharaxi doonaan madaxweynaha iminka xilka haya Ismaaciil Cumar Geelle. dhanka kale hadaba xisbiyada mucaaradka ah ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ku tilmaamay in talaabadan uu mar shanaad isku soo sharaxayo Ismaaciil Cumar Geelle ay wadanka u horseedi karto qalalaase siyaasi. shanaad xisbigiisu waxa uu ka caraysiyay xisbiyada mucaaradka mar rabno dalkeegu inuu burburo inuu baabo mar rabno inuu ay dadkayagu ay qaxaan. Ismaaciil Cumar Geelle haddii uu garan waayay annaku waan garanaynaa kollaba uma horseedayno dalkayaga inay dhibaato ay soo gaadho. Waxaan ugu yeedhaynaa in uu ka dego talada caqli iyo waayeelnimo uu la yimaado kuna dhammaada doorashooyin xor ah oo xalaal ah ummadda reer Djiboutina ay dooran karaan cidda ay